tihiin dumarka wadbadaha waa yar neceb yihiin laakiin aan waxaan jeclaa horta intaan u yeedhay safiirka somaliland mudane rashiid gaaro sida ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga inaan idin mahadnaqan qabo markaa waxaan u yeedhay safiirka soo dhaweeyay please. السلام عليكم. marka hore waxaan rabaa inaan horta aad iyo aad ugu mahadnaqo reer Ohio oo mar labaad igu soo casuumayaan xafladda qiimaha leh ee kala soo qayb galo inkastoo aan doonayay inaan diiradda cayriyo aan rabo reer Ohio maxaa xafladooda maalinta ugu dambaysa mar walba ka dhigay laakiin haddana waxaan kaloo idin siinayaa anigu reer Connecticut xafladoodii waa kala qayb galay community kala xafladoodii waa kala qayb galay waxaan idin sheegayaa in kasoo weera dambeysaan waa ugu qurux badantii aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin xafladda sharafta leh aad isku soo dubriteen waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan rag iyo dumarba intii ka qayb qaadatay isku soo dubridkeeda iyo maxaan ku dhahay samaynteeda waayo waa ka warhayaa runtii xafladahan oo kale hawsha badan ee ku baxdaa dhammaanteed marka aad iyo aad baan labaad ugu mahadnaqayaa intii isku soo dubrtay waxaan rabaa inaan laba kelmadood aan idhaahdo maalintan aynu maanta xusaynaa waa maalin saddex siyaaboodba loo eegi karo saddexdaas siyaaboodba marka la isku daro waa maalin macnaheedu tahay inay jiritaankeeda midda hore maalintanu waa maalin represent garaysa taariikhdeenii hore historygu ma aha uun intii recently the last 20 years laakiin waa modern historygeenii the last maxaan ku dhahay ilaa xornimadeenii ilaa dagaalkii xornimada ugu horreysay ee colonial qaadanaynu soo galo waa mid historygaas oo dhan matalaysa intiina badani kole historyga waa ka wada warhaysaan laakiin marka la soo koobo historygaasi wuxuu ahaa mid xornimadii dagaalkii xornimadii ugu horreeyey mid wuxuu ahaa kii maxay ahayday soo celintii xornimada mid wuxuu ahaa kii dowladdiskii dowladda la dhisayey mid wuxuu ahaa kii inaga nabaddeena dhexdeeda la sameynayey mid wuxuu ahaa intaasba waxay ahayd taariikhdeenii aynu soo dhaafnay May 18 marka aynu celebrate garaynaynaa caawa kale aynu halkan isugu nimaado waxaynu celebrate garaynaynaa oo aynu xusaynaa taariikhdeena oo dhammaanteedba ay tahay mid aynaan ilaawi karin May 18 waxa kale oo ay inoo represent garaysaa xilliga maanta aynu ku jirno maanta dhammaantiinba waa ogtihiin kulligeema internetku available bay inoo tahay waa aragteen dadkeennii meel kasta oo ay adduunka ka joogaan maalintii May 18 yar iyo weyn meel kasta oo ay joogaan ama waddankii ha ahaato ama Yurub ha ahaato ama Afrika ha ahaato ama North America ha ahaato sida aynu caawa celebrate gareynayno si la-eg ayay wada celebrate gareeyeen sababtuna waxa weeye because jiritaankeenna caalamka dhan ee aad aragteen ayaan ina aqoonsanayn inaynu jirno inagu laakiin waynu isaqoonsanahay as long as aynu isaqoonsanahay as long as aynu united nahay jiritaankeenna rabno rabitaankeenna ay ku joogto sidaas ayay jiraysaa sidaas ayay sii koraysaa sidaas ayay halkaa maanta ay taagan tahay inaga ka saraysaa ayuu gaaraya May 18 aynu taagan tahay halkaa aynu maanta taagannahay waxaynu ogsoonyahay May 18 waxay kaloo aynu taagan tahay inaad dhammaantiin baa aragteen in kalama hubo organization la yidhaaho IRI ayaa waxa ay survey ka sameeyey Somaliland muddooyin 12 bilood laga joogo su-aalkay weydiiyeen 1200 qof su-aasha ay weydiiyeen waxay ahayd raje intee la-eg baad ku qabtaan inaad ku noolaataan Somaliland qaran la yidhaaho gudihiisa
99.9% waxay ugu jawaabeen in ay very high hopes leeyihiin inay ku noolaadaan Somaliland. May 18 waxay noo represent garaysaa hopeskii iyo dreamska iyo visionka dadkeena dhammaanteed meel kastoo ay joogaan ama North America aynu joogno ama waddankii aynu joogno dhammaanteen waxaa niyaddeena iyo qalbigeena ku jira guusha wanaagga iyo horumarka Somaliland. May 18 waxay noo represent garaysaa horumarka iyo guusha aynu Somaliland la doonayno. marka runtii waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa celebrationka wanaagsan ee caawimay aad May 18 samayseen waayo waxa aad community-geeni reer oo caawa halka ka qeybteen in aynu la wadaagno dhammaan caalamka reer Somaliland meel kastoo ay joogaan taariikhdeena aynu xusayno taa maanta aynu ku noolahay aynu xusayno iyo hopeskeena iyo dreamskeena taasuna waxay muujinaysaa rabitaanka shacabkeena iyo dadkeena. waad maqlayseen maalintii dhaweyd madaxweynaha Soomaaliya laba hadal oo runtii aad delqaad inoogu ah ayuu yidhi midaynu maanta ka filaynay ama aynu uga fadhinayna maaha. hadalka koowaad uu yidhi wuxuu ahaa Somaliland maalintii aynu celebrate gareynay May 18 wuxuu yidhi Somaliland hankeeda hala noqoto. kursigaa uu ku fadhiyo madaxweyne hore oo ku fadhiyo Soomaali madaxweyne oo ah ayaa dhammaantiin u ogtihiin halka aynu kala gaarnay iyo intuu ina soo gaarsiiyey. hadalkaasu maaha mid aynu maanta filaynay inuu inaga soo gaadho madaxweynaha Soomaaliya laakiin waxay taasu markhaati ka tahay oo aan rabaa dhammaantiinba inaa ogaataan oo aad niyadda ku haysaan in qarannimada Somaliland rabitaanka Somaliland ay tahay mid dadkeeda iyo ummaddeeda iyo shicibkeedu inta ay rabaan walaa Soomaaliya walaa caalamka walaa cid allaale iyo cid wax yeeli karta aanay jirin. marka la leeyahay Somaliland waxaan rabaa inaan sheego Somaliland waa rabitaanka ummaddan. marka it's very difficult in la yidhaaho rabitaanka ummaddan ama qarankan hankiin la noqda laakiin waxa ay muujinaysaa halka aynu maanta Soomaaliya ka taaganahay. waana hadal deeqaaf ku ah waana midaynaan ogolaanayn waana midaynaan marnaba ka filaynin inaynu maanta dadkeena Soomaaliya hadalkaa ka maqlo laakiinse waa mid xaqiijinaya oo xoogeynaya rabitaankeena. anigoo doonaya inaan taariikhda ku sii dheeraan waayo maanta waxay nala joogaa oo martiinoo ah guddoomiye Muuse Biixi oo aan rabaa inaan ku soo dhaweeyo hadalka. waxaan rabaa inaan mar labaad runtii aan idinku mahadnaqo sida quruxda badan leh aad xafladdan isugu soo dabarideen. aan u mahadnaqo intii soo qabanqaabisay khaasatana aan idinku mahadnaqo waa intaasoo aan mar saddexaad lay soo casintaan xasilada aad leedaysay casinteen aad igu cadseen aad iyo aad baa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا ما تسنتي culumbus وما تسنتي عاوة فرحة يا قدرين يا شرفية إن كان صوت قيم قرار
reeco ahaado xafladan sida quruxda badan loo soo agaasimay iyo dadka sharafta badan ee caawa isugu yimid dabaaldegii xuska 18 May aad iyo aad bay farxad igu tahay sida meesha u soo qaabqaabsay golaha iyo sida loo soo dhaweysay iyo wadanadeeda ka muuqatana waad ku mahadsantihiin caawa haddaan iyarka idhaahdo maalinta dabaaldegayno waxaynu eegi doonaa iyar taariikhda in kooban oo ragga dadka waaweyn rag iyo dumarna xusuus u noqota dhallinyaradana يعني أقول كرسي وقت حرصة ضدك somaliland إلى أولياء إلى حكومة الشعائر هي ترسو إن بدل كذب البلاد نبتوي كلمات ما كان لقى صوب الأول مركي استعمار كأفريقيا قريب سنة إن قصة سؤال شيء من الوقت قريبي هذا الرئيس somaliland وحويها قرضة قرضة يوم شاب على كبه وأنا سكون جديد وأنا حيرك العالم يا أبو مقولي كنت سنكور مقولي تصرف في الدول دولة الإنجليز كل أنا وحكنا سيحنا يعني سوي ولي ما كل دي أنا بطل وحكنا سيحنا برجع على أول ولي ما كل دي مركب كشي ما وحكنا سيحنا ناو وراء دول بابا إسرائيل بريطانيا وإسرائيل من القانة سام تيلا نوسه تاسام بقصنا نبالي كوام صلاه وحيلا هذا ما تصاتي لهايو برجع على ساحي تذكر قوتها إلى مسك على السي أي أرض أي كسر جدا سؤال لا نقدر مستعينا إلى سؤال لا مركز الله يروح حلقة الصومالي مركز الصومالي بهذا الكيد وحمادية واستعمارية وحكم لها الصومالي تاريخ الدولة somaliland فرس عرب إلى إيو سيئة حتى تاريخ الدولة تحبينا وتحقق الصواب بالعرب سؤال الحكومة وحبرشة somaliland أيها الصومالي ركوفدي شمس الصوماليين ندس حقامة وتعليم وحول قرار وكريو الاستراحة وحكم لها في somaliland كوكا محمد أحمد علي يا جاندي يا يوسف حاجة هذا يا محمد شريكاب رجع سواحي قال هرجع إله ولوجي هاي وكحبط قبله إياه قال شيء بيوض قبل أبي أنا أرضي وحبران كل واحد أنا واحد نصيب بري كل واحد دولة دليل كل واحد ما تحكنا إنه بعضه أو يصدق بقول فدوال ريال culumbus جامعة قال أي كل من سويته يسير لك وصاها وطاني عصور Somali markay soo timaado shanta Soomaaliyeed wax saraakiil ciidan taabara oo akaadami ka soo baxa oo commissioner officer noqda ilaahay taariikhda Somaliland ku siiyay oo waxa ugu horeeyay dafcadii ay ka mid ahaayeen saxaalaha Xasan Kaydiyo Ismaaciil Cala Boqoriyo Luguye iyo raggaas ay ka mid ahaayeen in xawli halkan lagu aasay shirka talaada cariisay ay raggaas ka mid ahaayeen ayaa koob ka ahaa wax Soomaali ah oo akaadami military oo rasmi ka soo baxa marka shanta la isugu daro Somaliland taariikhdeeda ay markaa soo koobo maalintii ay dowladda qaadatay hal ilduuf oo siyaasi ay gashay hal qalad waxa la yiraahdaa masala ninka Kuuriyaha diyaaradda wada marbu qaldan markaa wada waayo ma gaal lama jaro soo kacay Somaliland marbu la intee qaadkiina ilaa maanta la rafanaysa وذلك كلية عرب انتو الجوائز كبحي افر عشو كلية حرية سايستي الدولة الترودية